السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسر دواد عصبلة تي في. ما أنتنا وحنا دول مرينا كل مدي هريال كإنجليز كالعياري وعلى العياري إلا أفر كلن أو كتسن هريال كإنجليز كا ما أنتوا ثلاثة كواحد كبد عقد جالسي أيا كوكفتي قرون كل عياري كواحد كبد عقد ساوثهامبتون جالسي أيا مرتو هاد كواحد كبد عقد ساوثهامبتون بس جالسي أيا مركي لبعض لقى بديه العيارات كان شان كلن أي عيارين laba kulan ayay badiyeen kulan barbardhac ayay galeen laba kulan oo kalena waa laga badiyay Chelsea ayaa qaab ciyaareed fiicneen ku jirta xilli ciyaareedkan walow ciyaartay dhowr oo daafacayaal soo iibsadeen kii ugu dambeeyay oo ahaa Wesley Fofana kaas oo aan wali kooxda Chelsea ay soo bandhigin balse caafimaadkii ku baasay 23 daqiiqo ciyaarta mareysay Chelsea ayaa si fiican u ciyaareysay goolkii koobaadna heshay waxaan u dhaliyay xidigooda kaga soo biiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee la yiraahdo Sterling ayaa 23 daqiiqo goolkaasi Chelsea u dhaliyay ciyaartana waxaway kaambida dambeyntan la aadin ayaa waxa bareejiyay 5 daqiiqo kadib ciyaaryahan yiraahdo Lavia kaas oo kubad shuudeed ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa goolkii labaad heshay inta aysan dhamaanin kaambiyada hore ee ciyaarta ama qaybta hore ee ciyaarta oo lagu kala nastay 2-1 ciyaartana sida ay ku soo gabagabowday kooxda Chelsea looga badiyay 2-1 kooxda Chelsea ayaa xaalad fiican ku jirta xilli ciyaareedkan isleedahay tababaraha kooxda Chelsea shaqadiisa uu waayay doona oo laga buri doona naadiga yaas isleedahay uu bedeli karaa naadiga inuu kusoo tababaro u noqdo sidoo kale kulamada kale la ciyaaray waxaa kamid ah kooxda Crystal Palace ayaa barajaha la gashay kooxda kubadda cagta ee Brentford gool cajiib ah ayuu dhaliyay ciyaaryahan Wilfried Zaha balse 88 daqiiqo markii mareysay ciyaarta kaliya 2 daqiiqo ka hartay ayay kooxda Brentford ay barajaysay waxayna ku dhamaatay ciyaarta 1-1 kooxda Fulham ayaa 2-0 ka badisay kooxda kubadda cagta ee Brighton ayaa kulankii ugu horeeyay horyaalka laga badiyay xilli ciyaareedkan walow 10 dhibcood ay wali leedahay kooxda kubadda cagta ee Brighton waxayna ku jirtaa kaalinta afraad sidoo kale waxa ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Leeds iyo sidoo kale Everton ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday 1-1 kulmo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa bari la ciyaaraya sida Bournemouth ayaa martigeli doonta Wolves Arsenal iyo Aston Villa ayaa wada ciyaari doona Man City iyo Nottingham Forest ayaa wada ciyaari doona West Ham iyo Tottenham sidoo kale wada ciyaari doonaan Liverpool iyo Newcastle ayaa wada ciyaari doona shanta kulan ayaa la filayaa birta inay dhacaan kulanka kale u dambeeya horyaalka Ingiriiska ee la ciyaari doono waa Leicester City oo soo dhaweey doonta kooxda Man United waad ku maasan tahay daawashada barnaamijka fadlan saadaali kulamada soo socda ee horyaalka Ingiriiska la ciyaari doono birito Arbaca iyo sidoo kale maalinta Khamiista kulanka u dambeeya ee Man United Leicester City fadlan videoga like saar sidoo kale si share garay muuqaalka haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar aad baa u maasan tahay la socoshada channelka iyo daawashada videogan